abaabulay ma jiro wax dibad ka yimid iyo wax dibad soo weeraray ma jiro jabhadda soo weerartay la sheegayna waa rag hubaysan oo isla og yihiin maamulka Ismaaciil Cumar Geele iyo abiye kooxdiisu isla og yihiin oo Itoobiya dhex fadhiyo loogu talagalay mission inay ka fuliyaan Ismaaciil Cumar lacag buu shubaa waa nagii sheegnay garabtiisan wixii lagu laayay garbaciisana saan bay ahayd dadka lagu laayay rag caynkaas un baa loo adeegsaday garbaciisa oo lacag baa loo shubaa rag ciidanka Itoobiya kamid ah rag maxay dawladda Itoobiya kamid ah Ismaaciil Cumar lacag u shubaa si ay meelaha la doonayo qalalaasa uga geystaan ama marka canfarta la leynayo ama marka ciisaha la leynayo qalalaasaha looga geysto aad baad u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinaya kulleyba barnaamijkii anagoo ku sii siqayna aan sii gudagelayno su-aal bay ka weyn tahay kulley su-aashaasi haddaan uga gudubno su-aashaasi waa su-aashii ciidanka waxaan u gudbaynaa oon dul joogsanayna xasan su-aashaasina ay tahay su-aal kulleyba ummadda Soomaaliyeed ay ka wada dharagsan tahay su-aashaasina ay dhacday 2014 waxay ku dhacdayna magaalada Muqdisho fanaanadiinii weyneed fanaanadii qaranka Saada Cali Warsame ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo iyadii ummadda Nabi Maxamed iyo qoysaskii iyo qaraabadii iyo ubadkeygii iyo dhammaan walaalaheedii oo dhan iyo Soomaali oo dhan waa soo wada taxsiyenaynaa waa gabadh aad iyo aad wanaagsan bay ahayd gabadh waxay ahayd soo jeeda gabadh waxay ahayd ficil gabadh waxay ahayd dadkeyga iyo dalkeyga jecel oo aad loo wada jeclaa bal xasan gabadhaasi iyo dhibaatadii waagay dhacday 2014 wax badan baa soo baadhaysa xasan wax badan baa hoos loo soo baadhayay kor loo eegayay hoos loo eegayay maanta inaad soo qaadatid barnaamijka Saada Cali Warsame bal xasan maanta maxaa keenay iyo waayadii hore waqti waad jirtay taabatay iyada laakiin kuma sii dheeraan laakiin maanta waxaa soo celiyey bal hore u sii soco xasan oo muddaha kula wadaagto asana waxa soo celiyay Saada Cali maanta inaan ka hadalno Allah u naxariistay haliyadii Soomaaliyeed ee Saada Cali waa maxay ahayd waxaan leenahay ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo waxay fanaanad caana oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada yaqaaneen Djibouti-na aad looga yaqaanay oo in badan Djibouti ka heestayna soo martay joogi jirtay waxay ahayd dadka maxay ahayd ay khaladay Soomaalinimada ninka Djibouti ku tumanaya buuran khala Soomaalinimadiisa ay khaladay bay ahayd oo khaladka bay ku dhimatay gabadhaasi Allah u naxariistay waxa la sameeyay propaganda fooy ayaa la tuuro waxa la yiri dahabshiil baa dilay baa loo tuuray oo propaganda caynkaas waagii la sameeyay dahabshiil way dhici kartaa in dahabshiil loo sii maray dilkeega oo de kharashka la mariyay dahabshiil way dhici kartaa waa wax dhici kara in kharashka lagu dilayo Saada Calina dahabshiil la mariyay waa wax dhici kara laakiin si waxaan ognahay xasanow wixii lagu dilay banaanka yaalaan oo iyada afkeega kaga heestay markay ogaatayna waqti dambe ahayd oo hadeed ay cadawga faraha gacanta u gashay waxa weeyaan waxaan jecelnahay horta bal inaan dhageysano heestii ammaanta ahayd ay samaysay kadibna heestii lagu dili doonay samaysay Saada Cali Allah u naxariistay iyadoo dhimatay bishii 7 2014 waxa imika laga joogaa xasan Husaan malaynay 8 sano yaan ka soo wareegay marka heestii bay samaysay ay horta balaayada dhanba halkay ka soo doonanaysa waxa weeyaan shaydaanka hadaad ammaantidooda fara la gagashid hadaad maxay kol ku qaniinabo ku qaniino ma garan hadaad adu doonatid hadaad doonan weydidood jeeda ka martid warba kaama haynay laakiin hadaad soo doonatid kol ku qaniinabo qaniini marka shaydaankii bay soo doonatay iyada amaan iyo meelaha la warwareegtay Allah u naxariistay kadib halka laga qaniini halka baad kadibna markay wax fahamtay xildhibaanad bay noqotay baarlamaankii Soomaaliya ku biirtay wax bay fahamtay soo Muqdisho dhex gashay wax badan bay fahamtay hees bay qaaday hees ay shaydaanka ku tilmaamayso farta ku fiiqayso shaydaankii farta ku fiiqayso yay ku heesto maxay a'uudu billahi minash shaydaan rajiim loo oran karaba tii bay ku dhimatay gabadhu marka bal heestii horta ugu horeysay markay shaydaanka walaal gasho gelinayo shaydaanka ay moodayso walaal balan dhageysano wax ku heesayso waayahay farsamayaqaanka
وهستي أكو أمانتي مدحونها جيبوتي كل با ومدى ريال جيبوتي يو ودن بردبعية أي هستا أكو أمانتي بل هستي لو حسن تدخل على لدقيستان waayahay xasan waxa iminkana aan dhageysanaa saad sheegtay heestii saado sababayba inayna la dilo ay ku dhimatay allah u naxariistee sabab u lahaa dhimashadeeda ama dilkeega sababay iyaan iminkana dhagaysanaynaa marka waxa weeyaan muxuu ahaa cadowga Soomaaliyeed marka uu ku soo dhaweysto habku si uu gasha ku galiyo ama aduu soo doono ama isagoo ku soo raadsaday markuu gasha ku galiyo waxa weeyaan waa marka uu doonayo inuu ku cuno haddaad iska fahamtid markaabaad ka carartidna waad badbaadi haddaad hoos fadhiisatid ood moodidna walaalu haysatidna ama wanaagad moodid iyo kalgacaylkan laabta lagu qabanayo kalgacayl iyo walaaltinimo aad moodid ood ku khaldantid oo lagugu sirana waa lagu gamuumayo qoorta lagaa goyni marka heestii muxuu ahaa saado ay ku dhimatay bal aan dhageysano iyo cidday ujeedaba dad kastaba way iska fahmayaan cidday sheegayso odayga gaboobay ummadda dul fadhiya bal aan dhageysano عرورتيو تقويو أبوياهن أنو جرنا حينو تبرقوين يا تاي تبرقوين يا تاي دبنين أمبارتو تدكالين يا تاي تمركيو عرورتيو تقويو أبوياهن حينو تبرقوين يا تاي تبرقوين يا تاي من تلكيس خويا دولار سيستي باتاي دولي روح كنولو تاريخ شوك سداتاي نولا كينو تيلو كنتو عايستي باتاي دول صاحتي دور باتاي دولا ولا يقانو قابل دادشاتاي دولا ولا يقانو قابل دادشاتاي حسن ودق la wada yaqaano qabiil daadahshaa tahay bay tiriyo waa la iska garanayaa duqan ay sheegayso waa ka tamashlaynaya maanta Muqdisho marka arinta ay gabadhaasi muxuu ahaa Allah u naxariistay haliyadaas ay ku dhimatay waa arimahaasi waxa weeyaan duqay sheegaysana Soomaali wada garanaysaa waa ka Xasan Sheekhna maanta u dabaaldegaya marka ilaahay buu leeyahay Xasan Sheekhna de kulli halkii la mariyay kuwii horan baa la marin doonaa isna farana waa laga hayaa waxaanu dhaqaaqay taan waanu tabi doonaa insha Allah